أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الحمد لله مركور الله سبحانه وتعالى يسكر آية مهدسن مركور الله مهدسن شركة مبصر جروب ما أنت موقرتي أبال مريتا قرطة بدن له إننا قدوسي صغرها أقاسمة عبد العزيز ورمتي إسمنا أهلين هوكرة هدوسا أسقى أهلين إنتانا وقف وشخصيا وكالدول يوجي أنا سأقومين iskuma baran lahayn mana imaan lahayn shirkada mabsaqo marka xigta hadda qof markuu abaalmarin helo shaqo qabta ayuu ku helay naftiisa ayaa lambar 1 lambar 2 waxa shirkadii abaalmarisay inaan dadaalay aniga laftirkayga oo aan shirkada howl fiican u qabtay naftayda waan ku dhiirigelinaya waan ku bogaadinaya raali ahada warka badiyo wariyaasha loo badayay marka waxaan rabaa cabdicasiis runtii intaan la shaqaynayay ama sanadkan aan shirkada mabsar group aan dhanka warbaahinta iyo sidoo kale waxyaabaha shirkada ay haysay inaan bulshada ugu bandhigay intaan kala shaqaynayay runtii wax wanaagsan ayaan ka bartay oo ah inuu yahay nin howlkar ah nin shaqo badan oo aan daalin mararka qaar waxaa laga yaabaa markaad waraysi ama warbixinno markaad samayso oo kale in adiga aad jeclaysanaysid warbixintii inaad waxyaabaha kale aad haysid xataa inaad ka hormarisid adigoo dhowr waraysi ama dhowr warbixinno ku yaalaan inaad tiraahid tan ayaa bulshada anfacaysa oo wax u taraysa maalintii ugu horeysay aan mabsar imaanayay shirkadda waxay ahayd inaan ogaado xogta iyo shirkaddan waxa ay hayso nasiib wanaag markaan imid waxyaabihii aan rajaynayay wax ka wanaagsan ayaan helay sababtaas ayaan u jeclaystay inaan bulshada la wadaago waxa ay shirkadda mabsar group hayso taasi ayaan igu dhiirigelisay in bulshada aan jeclaysta inaan fursadan inay ka faa'iidaystaan waan sii jeclaystay inaan sii wado taasoo keentay in bulsho badan oo ugu xiran ama dad badan oo ugu xiran shirkadii ay soo raadiyaan markay arkeen aaminaadii iyo dhulalka laga iibinayo inay yihiin dhulal saxa oo shatiyadooda ay saxan yihiin ama lahaanshahooda uu saxaya anna shaqadii way dhiirigelisay dadkii igu xirnaa ee shirkadda wax ka iibsadana way dhiirigelisay shaqo markaad wadaysidna mar walba waxa waaye hadday shaqadaad qabatay ay wanaagsan tahay adigana waxaad helaysaa inaad dhiirigelinaha inaad shaqadii sii wado taasi ayaanan waxay ii ahayd energy badan oo aan hawsha kula sii waday ama aan jeclaysay mar walbo oo agaasimo cabdicasiis dhul cusub uu daafuraayo inaan shirkadii tago bulshadina aan uga faa'iideeyo agaasimaha marka hore waxaan leeyahay waa ku maasan tahay
sida bulshada Soomaaliyeed aad ugu faa'iideysay iyo maanta waxay u baahnaayeen oo ah meel la aamini karo iyo dhul la aamini karo inaad bulshadii aad u soo bandhigtay hadda inaguna aan qayb ka noqonnay gaarsiinta bulshada Soomaaliyeed marka bulshadu waxa la mabsana ha u mahad celiso hadda inaguna noo mahad celiso haddaanan inaga u soo bandhigi lahayn u ogaan lahayn abaalmarintan waxaan leeyahay thank you very much waa ku mahadsantihiin adiga iyo shirkadaada markood waa salaamayaa sida quruxda badan halkan uga soo qayb gasheen marka labaad waxaan ku faraxsanahay shirkadda Mabsa Group in ay guddoonsiiso koobkan quruxda badan waana ku faraxsanahay in aan laftigayga aan shaqo badan qabtay aad ugu faraxsanahay waana mahadsanahay in aan shaqo badan u qabtay Mabsa Group booskuna waa mahadsan yahay inuu koobka abaalmarinta igu wareejiyey qof kasta oo nadaawanayna waxaan leeyahay mar kasta way ku soo dhaweynaynaa Mabsa Group halkan saabiin كدسلو ودوهاي aad ba u dhowahay dareenkay maanta lama soo koobi karo company Mabsa waxa leeyahay sanado badan ha jiro insha Allah waa company aamina waa company u fiican companiyada dhulka gabo ku soo dhawaada ay ilaahay dhammaan Soomaalida meel kasta ay joogtiin aad ba u بسم الله الحمد لله وكفى horta marka koobaad aad buu maansan yahay agaasimaha marka labaad asbaabaha waxa kamid ah oo ganacsiga ku barakoobo sidqiga iyo runta sidoo nabiga noo sheegay kaleeyhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam hadii aad run isu sheegtaan oo isu cadeysaan ilaahay wuu idin barakeynayaa bayciina hadaa isu qarisaana ilaahay waa idin ka burburinayaa waxaan wada dareemaynaa oon marag iyo makhraati ka nahay inay shirkaddan tahay mid barakaysan oo walibeeta intaas oo dhul gaday siina socota taasna waxaa keenaysa in run laga sheegay oo uu yahay ganacsigeedu mid xaqiiq ah oo jira oo dhulkiisana sharcigiisa la isku hubo marka labaad waxaan u mahad celinayaa naftayda sababtoo ah inaan shaqadan aan bilaabo oo walibeeta dhiiradoon soo hor istaaga dadka dhulkaana inuu jiro aan u sheego aniga ayaa sabab u ahaa kolkaan u imaaday walaalkeen Cabdicaziis oo ah shirkaddan agaasimaheeda si wacan oo hufan ayuu noo soo dhaweeyay wax sax ah oo jiro oo cadna wuuna tusay oo sharcigiisii wata waxaana ka dambeysay inuu kambaniga sida u balaadho waxaan leeyahay kambanigaasi waa kambani jira wuuna sii jiri doonaa biidinillah kusoo dhawaada macaamiisha inta dhulka ka gadatay iyo inta gadan doonta dhammaantiin baan soo dhaweynayaa aadna waad u mahadsantiin salaamu calaykum bahasha iyo weliba aad baan ugu faraxsan inaa mataqaanaa Mabsa annaga iska leh iniga iska leh dadka hadda ma daawanaa dad baan daawanaa dadkaasna Mabsa way iska leeyihiin anigana waan iska leeyahay I always wish you all the best waan ku faraxsanahay CEO ina garabkayga taagan tahay inaad mataqaanaa magaciisa ku qoran waan ku faraxsanahay wax walba meesha kale thank you so much ورحمة الله وبركاته. dadka qaar waa magac kale ugu yeerayaan oo lahaaya ma kulima waa ku faraxsanahay magacaasina inta markii laga soo tago waxaan u mahad celinayaa marka koowaad kambaniga Mabsa Group iyo CEO Cabdicaziis markii ugu horeysay horta oo hadiyad la siiyo wili stage intaan soo fuulay maartay hadiyad lama siin si gooni ah ku mahad celinayaa tan kambaniga marka taas laga soo tago kambanigan bilowgiisa xitaa waa ka warhayay maanta heerku uu gaarin marqaatiga ka ahay hool walba oo loo dhawr adeego oo waqti la geliyo oo juhdi lagu bixiyo dadaalkeeda la gaaraa Cabdicaziis kambanigan ka horaan asaga friends ahayn I think markuu bilaaway talada qayb ku lahaa laakiin isma lahayn maxaa la dhahay maanta fursadda iyo heerka uu maray iyo kambaniga gaaraya intaas oo dhan waxa lagu soo gaaray waxa waayo qofka hawsha wado oo dulqaad iyo samir iyo maaragtay iyo aaminaad asagana sidiisu aaminay
ودرتي ده هالكم كسو جاري كمبريجا وحان ليها قاسمها مرة وما سنتهاي وعليها هبدا وجامينتا dadka badankood ma lahan marka fursadii iyo hubadii Ilaahay ku siiyay iyo kambanigan oo aan maanta heerkan soo gaarsiisay waxaan ku leeyahay halkan ka sii wad insha Allah guulo badan oo aan markaati ka noqdo oo soo joogan waxaan rajaynayaa inaan maartay xaflado iyo munaasabado noocaan ah aan ku guuleysto intaas iga egtahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وارتس اوف ذا يير واي ضد waxay dhidana oo jaali ah goorma fanaan noqotay iyo waxyaabo noocaas ah marka aniga waxaan qaaday dhaantada ugu fiicneed oo magaalada Nairobi laga qaaday 2025 ana qaadaa u dhigi karaa kambaniga mabsaasay u maal gashin rag masuula majar iyo maamul hayo madow iyo cadaan way maqsuudeen inay absawahel u tahay maalin iyo haween kadibna fursada ku siin doona laba saddex eray inaad ka dhaxlid oo marinta lagu doonsiyo iyo shaqada wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بماد إسكاله ما أنتو حواي كعنتو حنكوها وحواي أول مرين واي 2026 وحوي بلا وانا أيضا معناها أول مرين أو 2025 كي دلال أساسي معناها كعنتو هاي الشركة دا كمبانيا مابس جروب أجنس ليميتد وكمبانيا وفي عن كراد مجال نيروبي أو متقنع دنكا دولالكا يا دون والبا كمبانيا أنا لسه شقي وحياة بدل دنكا سيل هدي له سيدو كلنا هذا ما أنت قعنتو حكواي وحواي أول مرتان Artist of the Year واي معناه عبسوا وارتس اوف ذا يير واي ضد waxay dhidana oo jaali ah goorma fanaan noqotay iyo waxyaabo noocaas ah marka aniga waxaan qaaday dhaantada ugu fiicneed oo magaalada Nairobi laga qaaday 2025 ana qaadaa u dhigi karaa kambaniga mabsaasay u maal gashin rag masuula majar iyo maamul hayo madow iyo cadaan way maqsuudeen inay absawahel u tahay maalin iyo haween marka أجد وحليها thank you so much وحاول CEO مدحوينها أما وحندي كرام ملكيلها كمبانية مبس جروب أجنس نكا وأنا قلبي ونكسون واي وحنا ونكسون هذا أدق إلهي وحكي السيء إن هذا اللي يرتقي في هذه نكا هذا اللي يرب بدن ومجال نيروبي معناها الربان إن شقستان أيوة شقسية سيدو كله ضد بدن أو العجة هيستين وحكي قبضان جرن العين ما أنت بقول بهيستان marka waxa waaye dhulkan dhul aamin waaye waxa waaye waa dhul lagu kalsoonaan karo waaye 100% sharciga iyo wax walbana macnaha waxa waaye oo ka diyaarsan waaye marka waxaan dhiilaa Mabs Group Agency Limited haddii aadan dhul ka gadan wali still 2026 lisigla welcome ku soo dhawaaw company-gan aniga iskale adiga iskale anaga dhana iskale welcome idin leeyahay thank you so much amasantii senior accountant Agency Limited. magacaygu waa Abdulrahim senior accountant Mabsa Group maanta oo Monday xalay inshallah shukran sana Mabsa Group our CEO Abdulaziz shukran sana so inshallah Mabsa Group is the best in the world. Assalamu alaikum. I want to agree. Sales and logistics manager. Thank you very much. Manager, sales and logistics manager. Our manager, Nawali, your Kosia, you go to the Hello. Hello. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد ومقدس مختار. دلحان ويوعي كرتاه. أنت وحاومات علينا ورتي إليك سكو مبسا. Abdulaziz, my boss, CEO, my mentor, my role model, leaders out. So all I can say is thank you so much, my sister Nawal. You did catch us over the Shkendan, Kama Sintin. Najua mtadhani nimepanga kusomali lakini mimi mnaona. Thank you so much. God bless. Sandra Arti Sodo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كواد إلى مهد علننا
oo maanta intan soo istaajiyana ku caafimaad leh alxamdulillah marka labaad booskeena oo na siiyay waqtigan opportunity-gan inta soo istaagno marka yeah thank you بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمكوات وطوري حلوة ما تعلينا يا نفتي سهيد thank you طلوات وحلوة ما تعلينا يا مبسط جروب ايجنسي ليميتد thank you Assalamu alaikum. As much I'm into cameras, I'm camera shy at the same time. Sijazoea kuongea in public, and I would like to give a vote of thanks to MAPSA Group. I've worked with MAPSA Group Agency Limited, and this is my second year, second December, second award giving, and I would like to appreciate my boss over here. Thank you so much. And I've learned a lot of things through MAPSA Group Agency Limited. I will not take that for granted. Thank you. Tunatoshana bala. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu bila Mwenyezi Mungu hatungekuwa hapa na MAPSA pia haingekuwa hapa. Jambo la pili ni kumshukuru CEO Mr. Abdiaziz kwa kutupatia nafasi kuwakilisha MAPSA huko nje na pia hapa ndani. So inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia next year pia ikuwe kubwa na MAPSA izidi na isiwahi rudi nyuma. Mungu aibariki MAPSA, Mungu abariki CEO. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. First of all, I don't have much to say. I'm grateful to Almighty Allah for this far, alhamdulillah, and I'm thankful to my boss, Abdiaziz Muhammad Noor, the CEO of MAPSA Group Agency, and everyone who is behind our success and all the staff. Thank you again. horta ilaah maad iska leh maantaan meeshaan ugu keenana ka dhan alxamdulilah waana ku faraxsanahay awaarkan oo sanadka bilaabanay 2026 aan u shaqaysto 2025 oo ka dambeeya booskeyga Abdiaziz oo qof kasta aan soo shaqeynay Nawaal Mariam Golden Dalha Ojalia qof kasta aan soo shaqeynay Misani inta ku faraxsanahay oo maantaan awaarkan aan darteena ku qaato oo alxamdulilah MAPSA company kilo hugo wayo or best quality land with everything titles. If you want to invest in land, just come to MAPSA and it will deliver your dreams. Thank you so much. ران باصلة شركة MAPSA Group Agency Limited وأنتم عزونا يا شباب جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة وروح مع ذكر الله سبحانه وتعالى وماشي سكوك كيني سبنا فوق MAPSA Group agaasimaheeda meel dheer baan iskala imaanay maasha Allah iyo groupka oo dhan waa la socdaa every day marka waxaan rajaynayaa guul insha Allah next December waxaan rajaynayaa guul ka sii wanaagsan insha Allah taala MAPSA waxa la yahay hadda uga sinta markuu warayso horta mariyaanteeda hadal badan ma qabi waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha waxaan leeyahay hadda uga maasantahay waxaan aaminsanahay inaan shaqo waxaan soo qabtay sanadka xigana insha Allah waxaan rajaynayaa inaan waxyaabo badan oo qarsoon oo dhanka marketing iyo waliba social media maadaama aan wato title-ka communication manager-ga inaan roolka liibay ama jagada aan hayo aan u daacad falo aniga
naftayda oo daacadfalo aad mahadsantihiin agaasimadigana waxaan ku leeyahay shaqada wacanad wado aad uga mahadsantahay agaasimihina waa shaqsiga keliya maalintii laga yaabo inuu laga saaxabto annaga bilaadan aan nahay laakiin asagana waa bilaadan balse waxyaabo badan baa jirto oo lagu dhiirigeliyo markaan mabsa la bilaabaya ahaantayda horta haddii aan background history yar idin siiyo sanadkan January la bilaabay haddii xasuustaydu si fiican wanaagsan tahay inaan duqoobin marka la bilaabayo waxyaabo badan oo ay qarsoonaa jirto main strategy aan soo galay real estate waxay ahayd inaan barto industry real estate-ka media ku soo xajisay halka waxaan isii marka waxyaabaha xiga ee dunida maanta xisaynayso baro waxaana aad u bartay sharciyada dhulka iyo waliba noocyada kala duwan ee dhulka Kenya agaasimaha dalkiisa aad